بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركله إيه برنامج كيني حوغال qodobada barnaamijkeena xoogaal aad ku maqli doontaan waxa kamid ah qodobkeennii uu inoo soo diyaarinayay Ismaaciil Nuur Liibaan ee ku saabsanaa isbedelada dabeecadaha carruurta gaar ahaan bulsho ahaan sida qofka loogu tababaro marka ay carruurta yihiin iyo marka kale labadaba waxa kale oo barnaamijkeena xoogaal aad ku maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay Cumar Maxamed Faarax oo ah agaasimaha wakaaladda wararka Soomaaliland ee Soolna oo ka waramay qaabka ay wararka ugu diyaariyaan bulshada dhageysanaysa idaacadda Radio Hargeysa iyo sida ay warbaahinta kale ee online-ka ah ay ugu daabacaan wararka ay la wadaagayaan bulshada ku xidhan wakaaladda wararka Soomaaliland gabagabada barnaamijkeena xogaalna dhageystayaal waxa aad ku maqli doontaan adduunyadan indhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo dergiyo nin dhowr qaday andheefayn indergiyo nin dhowr qaday andheefayn eddigiyo laboodba hawli kama dhammaatay qof waliba wixii dhibay dhafuurkay ku taala heestaasi jacayl dhidibka aastay waxa aad ku maqli doontaan codkii fanaankii Allah u naxariistay Maxamed Saleebaan Tubeec markan iyo haatan dhageystayaal aynu soo qaadano qodobka ugu horeeya ee aynu ku bilaabayna barnaamijkeena xoogaal waxa aynu soo qaadanaynaa qodobka uu inoo soo diyaariyay Ismaaciil Nuur Liibaan ee ku saabsan isbedelada dabeecadaha carruurta gaar ahaan waxa aynu ku eegaynaa barnaamijkan bulsho ahaan sida qofka loogu tababaro marka ay carruurta yihiin iyo marka kale labadaba waa kan Ismaaciil Nuur Liibaan oo qodobkaasi inoo faahfaahiya haddaba bulshadu way noocyo badan tahay marka tarbiyad ahaan loo eegayo bulshada waxa loo qaybiyaa 6 nooc 6 nooc ayaa markaasi aynu mid isku dul taagi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo haddaba ta koowaad waxay noqonaysaa qoyska oo qoysku waa bulshadii oo yar qoysku waa bulsho yar oo ka kooban aabe iyo hooyo carruur dadka qaraabada guriga ku nool iyo dadka soo booqda baa la yiraahdaa inta haddii la isku geeyo bulshadii oo kooban ama haddaynu af Soomaali kala ku sheegno waa muunad ka mid ah bulshadii marka haddaba qoysku raad weyn buu ku leeyahay tababarka carruurta waana meesha kaliya ee waxa la yiraahdaa haddii tarbiyadeedu ay qaloocato ay tarbiyadaha kala dhami la qaloocanayaan qofkaasina laga yaabo inay noloshiisu hadhowto meel xun ay gasho haddaba intaynaan u gelin tarbiyada carruurta bal waxaynu wax ka tilmaami doonaa qoysaska iyo inta nooc ee loo qaybiyo dadka adiga qoysaska wax ka qoraa markay dhinaca tarbiyada ka eegayaan waxa loo qaybiyaa 6 qoys qoysaskaasi marka aan mid u sheegno mid afka Ingiriisiga waxa lagu yiraahdaa reconstituted families waa qoyskii oo isfura
waa marka ay kala tagaan hooyaduna ilmihii ay qaar ka haysato aabuhuna uu qaar ka haysto waa marka hooyadii nin kale ay guursato marka carruurtan hooyadu wadato ninkan qaba aabbo maaha ciyaalka aabuhuna uu xaaska la guursado carruurtan uu wataadii xaaskan cusub uu guursaday dee hooyadood maaha marka halkaa waxa labadii qaybood way kala dhataalan yihiin laakiin waa laba qoys marka qoysku markuu noocaa noqdana waxaa jira qaab loo tarbiyeeyo carruurta qoyska labaad waxa uu noqdaa baa la yidhaahaa marka af Ingiriisi lagu sheego single parent family waa qoyskii oo waalid kaliya ku soo harayo marka waxa la yidhahaa saddex nooc ayuunbuu ku iman karaa qoyska waalidka kaliya ku soo haro kow waxa la yidhaahdaa waa labadii waalid oo midkood dhinto haddii markaa qof ajashiisu ay gasho oo ama hooyadu ay dhimato aabihii waxa ku soo baxsanaya hawsha carruurta hadduu aabihii dhintana hawshii iyo mas'uuliyaddii carruurtu waxa dusha ka fuulaysaa hooyada marka hooyo kaliya waalid kaliya ayaa hawshii furdaaminaya oo wadaya qodobka labaad ee ku yimaada waxa ay tahay iyadoo labadii waalid ay kala tagaan oo mid ka mid ah carruurtii looga tago ama aabbuhu carruurtii uu haysto ama hooyada carruurtii ay haysato marka waalid kaliya uu maamulayo carruurtii qaabkan uu ku yimaadaa baa la yidhaahdaa waxa kale oo nagu soo kordhay qoysaskan Yurub tagaya ee dibadaha tagaya ee ama hooyada carruurtii ay ka haysanayso ama aabbuhu ka haysanayo oo hooyadu kaliya carruurtii halka ku maamulayso aabihiina laga yaabo inuu wadankii joogo taasi markaa waa taa waalid kaliya carruurta maamulayo iyaduna waxay leedahay qawaaniin gooni oo loo raaco marka carruurta la tarbiyeynayo ta saddexaad waxay noqotaa baa la yiraahdaa marka af Ingiriisi lagu sheego extended families waa carruurtii oo ay korinayaan labadii waalidaan korinayn laakiin lagu wareejinayo waalidkan dhalay ama inanka waalidkiisii ama inanta waalidkeedii ayaa carruurtii lagu wareejinaya baryahan dambana waxaad moodaa in habdhaqanka noocan uu yimid oo waxaad arkaysaa islaam weyn oo saddex ciyaal ah la daala dhacaysa oo iyada laftigeedu iyadoo teedii u tabar daran ayaa haddana carruur loogu sii daray marka ayaan darooyinka jira waxa ka mid ah inankii la soo koriyay ee lagu soo tiiriyay tacabo beele inuu haddana ubadkiisii uu hooyadii iyo aabihii u geeyo waa dhibaatooyinka maanta ka jira meelo badan waynu markhaati ka nahay oo halku isagu waalidkii ka daryeeli lahaa haddana waalidkii culays labaad ugu daraya waalidiinta marka carruurta noocaas loo dhiibo qaarkood waa ayeeyooyin qaar waa awow qaar waa edo qaar waa habaryar qaar waa abtiyaal marka carruur noocaas ayay korinayaan oo qoys ahaan bay u dhisan yihiin iyagoo toodii u daafadla markaas carruurta noocaasina waxa la yiraahdaa tababarka ama tarbiyada la siinayaa waa si gooniya haddii marka aynu afraad u nimaadno qoysaska ama qoyska nooca afraad ee uu noqonayo waxa afka Ingiriisiga lagu yiraahdaa mixed heritage families waa labadii waalid oo laba jinsiyadood kala wata ama laba wadan ka soo kala jeeda ubadna isku haya carruurta marka halka joogta waxa la yiraahdaa labada waalid si kastoo luqa ahaan ay isku afkaranayaan haddana wuxuun baa ka maqan marka waxa la yiraahdaa carruurta noocaas ee labada waalid ay laba wadan ka kala yimaadeen tababar gooni iyo tarbiyad khaas ah ayay iyaguna leeyihiin tashanaad waxay noqotaa baa la yiraahdaa marka af Ingiriisi lagu sheego nuclear family waa qoyska aabaha iyo hooyadu ay joogaan iyo carruurtu wana qoysaska sida caamka dadka badankiisu ay tarbiyadooda yaqaanaan inta badan laga hadlo inta badan tarbiyada laga hadlaana waxay khusaysaa qoys aabiyo hooyo joogaan laakiin kama hadlaan carruurtan meelaha kale joogaan iyo qaabka loo tarbiyadeeyo lagama hadlo hase yeeshee nagu waxaan isku dayi doonaa in intii aynu ka gaari karro bal carruurtaas meelaha ay gashay oo dhan qaabka loo tarbiyeeyo inaynu wax ka yar tilmaano waqtiyada dambe ka lixaad wuxuu noqdaa baa la yiraahdaa qoyska af Ingiriisiga lagu yiraahdo childless family waa laba qoys oo wada jooga oo hooyo aabba jooga
laakiin aan ubad isu lahayn marka qoys ahaan bay u dhisan yihiin oo bulshada kaga mid yihiin iyagoo qoys ah asaatee marka qaarkood waxaa dhaca in carruurta la dayaco ama meelaha lagaga tago waalidkaasi intay qaataan ay maxkamadda la tagaan dibadda loo soo sharciyeeyo si ubad ahaan ay ugu korsadaan marka waalidka noocaasa aabaha iyo hooyadu may dhalin ilmahan ay korsanayaan ama ciyaalkan ay korinayaan hase yeeshee kaalintii waalidkay ku jiraan marka tarbiyadda carruurtaasina marka ay yar yihiinna si gaar ah loo tababaraa marka ay weynaadaan ay ogaadaan labadan waalid inaanu midkoodna dhalina qaab kaloo loo tababaro laba tababar ayay leeyihiin kuwa noocaasi waaynu ka hadli doono waxa kaloo iyaguna laba tababar yeesha carruurta aabaha iyo hooyada labaduba dhintaan ee gacanta u gala dad kale oo qaraabo ah iyaguna waa tarbiyadaha qaarkood kuwa ugu dhibta badan leh sida carruurta loo koriyo haddaba haddii aynu noocyadii qoysaska aynu intaa kaga nimaadno bal hadda aynu u nimaadno tarbiyadda iyo halkay ka bilaabato dadka qaar ba waxaa laga yaabaa tarbiyadda inuu haystaan inay ka bilaabato carruurta laakiin carruurta kama bilaabato waxay ka bilaabataa aabaha iyo hooyadu ayay kasoo bilaabanaysaa tarbiyaddu haddaba tarbiyaddani meesha ay ka bilaabanaysaa waxa way aabuhuna intaanu guursan hooyaduna intaanay guursan in loo diyaariyo inuu inankuna aabba noqdo hooyaduna ay hooyo noqoto si labadooduba kaalinta ay leeyihiin ay u qaataan haddaba inta badan waxaa iska dhacda sida bulshadeena caamka ka ah in islaantuna ay tidhaahdo inankii uu guursanaya inanku waa iska guursaday dabeeta inana anaa u haya marka labadii qof la isku keenana dabeeta mid walba dabeecaddiisii cusbayd ee rasmiga ahayd uu la soo baxo dabeeta qoyskii oo toddobaad meeshii wada joogin baa lagu oranaya way kala tegeen qoys burbur badan baa halkaa ka yimaada xataa waxaad arkaysaa dad iska dhaqan oo lacag leh oo koranaya ilmihii uu yar yahay waxaan doonayaa inuu dhiso dadkiina waxay ka fikiraan tiro in la farabato laakiin kama fikiraan tayada war inankan yari ma u diyaarsan inuu mas-uuliyad qoys qaado ila adigu aabbo u noqon maysid ciyaalkan awoowaad u tahay hase haatee inankan waxaa ka fiican inaad u tababarto oo lagala taliyo si uu aabbo u noqdo oo ilmihiisa u korsan karo isaguna kaalintii aabbanimo ka soo baxo inantana loo tababaro qaabkii ay hooyo ku noqon lahayd waana xirfad la barto maaha wax qofku gurigooda kala yimaadee waa xirfad la barto oo dad gaarihi ay yaqaanaan markaa waxaad arkaysaa dad lacagda qoysas ku dhisay oo khaati kala taagan oo dhibaatadu inta badan qoysaskan isfuraya labada qof inta badan waxaa laga yaabaa mushkiladda soo dhex martaa way kooban tahay laakiin had iyo goor waxaa faragelin ku haya baa la yidhaahdaa ama xagga aabbuhun bay faragelintu ka socotaa oo inanka iyo qaraabadiisa ama hooyadii iyo qaraabada inanka unba mushkilad wadaa ama qaraabada inantunbaa mushkilad wadaa dabeeta labadii qofna markaasuma mushkilada ka dhex bilaabmaysa waa lagu kala tegaya carruurtunbaa hadhowtana noqonayaa dhibanaya haddaba inanka iyo inantu inta aanay guursan ay doonayaan inay noqdaan musharaxiinta isguursanaya waa inuu inanku marka hore bartaa wax la yidhaahdo self leadership waa inuu isagu is-hogaamin karaa isagiibaa kala maqan oo aan iswadi karin waayo noloshan kelinimada uu ku jiro iyo nolosha qoysnimadu tegaya waa laba nololood oo kala duwan marka waa inuu qofku inta aanu guursan uu isku diyaariyaa qof noocee ayaa tahay aabba noocee ayaad noqonaysaa kadib qofku hadduu isagu doonayo inuu is-hogaamiyo markuu ku guulaysto inuu naftiisa hogaamin karo waxaa imanaya qawaaniin badan iyo shuruuc badan inuu barto oo uu ku guursan karo kow waxaa ka mid a qofku inuu si daacada naftiisa dib ugu noqdo uu dib isku xisaabiyo akhlaaqdiisu nooca ay tahay iyo kaalinta ay ku jirto maaha adigu sidaad ku haysato oo sida dadku kuu haystaan weliba dadka wanaagsan waana dadka akhyaartii ay kula taliyaan iminka casharro waxay noo bilaabmi doonaa haddii laha yidhaahdo aynu qoysaska kaga hadli doono iyo la talintooda iyo sida aabba lagu noqon karo iyo sida hooyo lagu noqon karo marka qodobka koowaad ee aabbaha ama hooyada laga doonayaa qofku waa inuu dib isugu noqdo si daacada uu dib isku qiimeeyo uu dhaha qof noocee ayaa tahay markaa macnuhu maaha anigu waan weynaado dabeecaddeedu ma bedeli karo waa la bedeli karaa liirafshinimadu waa xirfad la barto ta lagu dhasho iyo ta la barto waxa inta badan qiimo badan baa la yidhaahdaa ta la barto marka kow waa inuu qofkaasi horta akhlaaqdiisa is eegaa nooca ay tahay isagoo oo la tashanaya dadka aqoonta u leh mar labaadka waxaa la yidhaahdaa waa inuu qoraa dabeecadaha xunxun ee hadhowta xidhiidhka qoyska baabiinaya qof walba dabeecado xunxun buu leeyahay tusaale ahaan
balwad baad leedahay waad qarsataa imika oo cidi kuguma oga qof walba wuxuu leeyahay dabeecado khaas oo u qarsoon dabeecadahaasi hadhowto way soo baxaan marka waa in dabeecadahaasi mid aad uga takhalustaa oo adigu istababartaa oo sagaajisaa kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Nuur Liibaan oo inoo sharaxayay isbedelada dabeecadaha caruurta gaar ahaan bulsho ahaan sida qofka loogu tababaro marka ay caruurta yihiin iyo marka kale labadaba dhanka kale iyo barnaamijkeena xog ogaal waxaan wareysi la yeeshay agaasimaha waaxda wakaalada wararka Soomaaliland ee Soolna Cumar Maxamed Faarax waxa uu iga xog waramay qaabka ay wararka ugu diyaariyaan gaar ahaan bulshada ku xidhan idaacadda Radio Hargeysa iyo sida ay ugu qoraan wararka dhinaca online-ka ee website-ka iyo waliba baraha bulshada ee wakaalada wararka Soomaaliland waxaana aan ka wareystay sida wareegtadii uu soo saaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdinaasir Cumar Jaamac ee ku saabsaneyd dheelitirka wararka ay saameyn togan ugu yeelatay diyaarinta wararka wakaalada wararka Soomaaliland hadaba waa kan Cumar Maxamed Faarax oo amuurahaasi ka waramaya waad maasantay Sakariye wakaalada wararka ee Soomaaliland Soolna waxa la aasaasay sanadkii 2007 waxa lagu aasaasay digreeto madaxweyne oo uu soo saaray madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Daahir Yaale Kaahin gudoomiyihii horeeyay wakaaladu wuxuu ahaa suxufiga weyn ee Cabdilaahi Aadan Cumar Wayab kaasoo dhaqaaq jinteedii iyo asaaskeedii salka u dhigay intii ka dambeysayna waxa soo maray laba agaasime waaxeedoo kale aniguna waxaan noqonayaa kii afraad ee wakaalada soo mara wakaaladu waxay u shaqeysaa horta partnerka iyo bahwadaagta koowaad ay la tahay waa idaacadda Radio Hargeysa idaacadda Radio Hargeysa waxaanu qornaa wararka gudaha iyo kuwa dibaddaba maalintii waxaanu u qornaa 2 war habeenkiina 4 war 6 war ayaan u sameynaa 24 saacadoodba waxa kale oo aanu leenahay website wakaaladu ku qorto wararka waxa kale oo aan xukunaa page-ka iyo website-da Radio Hargeysa TV-ga qaranka ka wakaalada iyo social media wasaaradda oo dhanna xafiiska oo wakaalada ayaa gacanta ku haya waangatay Cumar mar waxa jirtay wakaalada wararka ay bilowday warsida yar oo loogu talagalay in wararka lagu soo saaro halkee arintaas ku dambeysay warsidahaasi wuu jiray uu soo bixi jiray markii uu muddo soo baxayay ayaa wasaaraddu ka shirtay dadna waxa la isla gartay in warsidihii aanu garab socon wargeyskii dabeedna waxa la yidhi wargeyska aynu xoojino wargeyskii baa dabadeedna maxaan ku dhahdaa aanu deynay maadaama warsiduhuna sidii wargeys ahaan oo kale ugu daabacnaa waxa madaxda wasaaradda go'aamisay in warsidaha iyo aan isfarfar socon wargeysku maadaama wargeysyada dawan ay jiraan waxa la yidhi warsiduhiina aynu bedelayno ku xoojino xagga website-ka dadna saas uu yar joogsaday uu jiray Cumar Maxamed Faarax xilligan waxa dunida saameyn weyn ku yeeshay tiknoolajiyada gaar ahaan social media han dhawaanta soo baxay inta warbaahintii magaca lahayd weyn ama idaacadii ama television-kii ama wargeyska ahaa hadii uu social media yeelan waayo dunidiba uu ka maqnaanayo ama saaxadaba uu si fudud uga baxayo marka maadaama dadku gacanta ku haysaan hawsha online-ka ama dhamaanba wixii online u qaabilsan television-ka idaacadda wargeyska marka laga yimaado iyo wakaalada halkee hawshaas idin maraysaa qaab nuuceeya baad wararka ugu baahisaan bulshada halka ay nagala socoto runtii waxaan ugu baahinaa horta waxa la yaqiinsaday oo la isla fahmay muhiimad weyn inay social media iyo saxaafadda bulshadu u leedahay hay'adihii warbaahinta oo la'aantood hay'adii warbaahintu aan social media ku firfircoonayni ee aan social media-heedu adkayni runtii waxay noqonaysaa mid dhutinaysa oo gaabinaysa taasaa la isla gartay maadaama aynu taa yaqiinsanay saako u dambeysay waxaan ka shaqaynaynay in kharash lagu maalgeliyo social media
ka wakaaladda beejka idaacadda beejka telefishinka qaranka beejajka wasaaradda oo dhan lagu maalgeliyo kharash dabadeedna si kor loogu qaado tirada dadka ku xidhan beejajka laamaha warbaahinta ee wasaaradda warfaafinta taasoo madaxda wasaaradduna gacan ka geysanayso oo runtii ay fudeydiyeen oo ay nagala shaqaynayaan qaabka loogu shaqeeyaana waxa weeye raadiyo hargeysa oo kale xilliyada warka iyo barnaamijyada waa la geliyaa oo war kasta iyo barnaamij kasta oo raadiyo hargeysa ka baxay aynu rajaynaynaa iminka aynu adkaynaynaa in laga helo social mediahii website-kii youtube-kii xilliyada qaarkoodna waxaaba jira baahin toosa oo internetka lagala socon karo marka idaacadda hawada ku jirto oo kale aad baad mahadsan tahay cumar maxamed farax dhowaan wasaaradda warfaafintu waxa ay go'aansatay in wararkii dheelitir lagu sameeyo isla markaasina markii laga sii daayo xisbiyada iyo weliba dhammaanba guud ahaanba somaliland ciddii markaasi war sameynaysa ama war inoo noqonaysa oo aan la kala soocin marka arrintaasi sidee bay saameyn ugu yeelanaysaa togan wakaaladda wararka ee wararka soo qoraysay runtii tallaabo fiican weeyaan waynu soo dhaweynay waxay ahayd amar ka yimi madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland muuse biix cabdi madaxda wasaaradduna markay isku yimaadeen amarkaas way howlgeliyeen oo in la dabaqo ayay amar buuxa ku bixiyeen kusimaha wasiirka ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda cabdinaasir cumar jaamac amar warqad buu soo saaray dhowaan wuxuu hay-adaha warbaahinta ee dowladda ku amray in ay si dhexdhexaada u tabiyaan wararka xisbiyada mucaaridka iyo wixii warare ee bulshadu leedahay ama lagu noqday iyo dowladda si togan wax loogu tilmaamayo daliil jirta lagu sheegayo in la daabici karo la sii dayn karo ayaa la amray arrintaas waynu ku shaqaynaynaa waanu bilownay way socotaa ilaa dhowr war way baxeen xisbiyada mucaaridka qudhooda iyagana waxaa looga baahan yahay inay kaalin ka geystaan oo ay inagu soo marti qaadaan oo ay shirarkii jaraa'id inoogu yeedhaan oo waraysi marka aynuga baahanno ay noo fudaydiyaan oo aanay noqonun warkoodii wax aynu meel kale gacantii labaad inagu soo galay ay inagu soo marti qaadaan oo aynu tagno shirarkooda jaraa'id oo aynu waraysiyo ugu tagno oo aynu wada shaqaynteenu saa ku bilaabanto waa gartay cumar aad baad u mahadsan tahay dadka qaar waxaa laga yaabaa inaanay aad aanay u fahmin marka la yidhahdo dheelitirkii wararka oo xal xoojiyadaasi marka war la dheelitirayo muddo dheer baad saxaafadda kusoo jirtay oo imika nin rug cadaaya baad tahay wargeyskii baad soo martood maamulka ahayd wakaaladda baad imika maamulka tahay haddii bulshada aan dhegeysanaysa aynu fasirno qaab nuuceeya buu noqonayaa marka la leeyahay war baa la dheelitirayaa runtii wararka la dheelitirayaa waxa weeye xisbiyada un maaha imika waxaa jira baahiyo badan iyo dhaliilo badan oo adeegayaasha dowladdu ay ka gaabinayaan ama dadku ka cabanayaan waxaa la sii daynayaa dadkii aan codkoodu gaari jirin bulshada sida dadka suuqa ka shaqaysta dadka dadweynaha wixii dhaliil wixii tilmaan wixii ay dowladooda u jeedinayaan wixii cid kastaaba fikirkeedii oo saliima ayaa laga sii daynaya tusaale ahaan wararka un maaha waxyaabahan tayana waxa ka mid a xataa oo ka mid a dheelitirka in aragtidii loo sii daayo dhegaystihii oo bilmasalimka waxaad sii daysaan iminka idinku raadiyo wargeysa ahaan barnaamijka ra'yiga dadweynaha barnaamijkaasoo kale wuxuu sheegaya dadkii in si siman codkoodii loo wada maqlo oo wixii ay dowladooda ka tabanayaan la sii daayo wixii xisbiyada mucaaridka ay soo jeedinayaan la sii daayo wixii ay ganacsatada iyo badeecadaha dalka ay kaga cabanayaan la sii daayo marka runtii waa mid sumcadda saxaafadana gacan ka geysanaysa isku xidhkii iyo niyadsamadii ummadana isku muujinayso isku keensii tulaysa cumar aad baad mahadsan tahay ugu dambeyntii waxaan jecelahay bal hadda inaad faahfaahin naga siiso wakaaladda wararka somaliland muxuu yahay
mustaqbalkeeda dhow ama higsiga aad higsanaysaan mustaqbalka dhow iyo ka fogba higsiga aan higsanaa waxay yahay inaan noqono isha ugu dambaysa wararka dalka ay dunida kale ka sii qaadato oo qaybtan luuqadaha ee wakaalada la tayeeyo la hagaajiyo kharash la geliyo loo sameeyo ma garanaysaa hawlwadeeno loo qoro wararka carabiga iyo ingiriisiga iyo wax ku daabaca oo ku daabaca website-ka wakaalada si dunidu ay halkaa uga qaadato wararkeena ummadda waxaa deeqayo shacbigu ay ku tiirsadeen dadkuna kama maarmi karo akhbaaraha dunida iyo waayaa degalkooda yaal inay u helaan degdege haddaan la istusiyayn dhammaan dibad iyo gudaba ummadda waxaa deeqayo shacbigu ay ku tiirsadeen daljira raadiyo hargeysiyo darbana tiifiga qaran iyo sonla iyo dawan siday door iyo habeen mar walba warar dooraha naftooda ku dagsatiyo xog darayaay uga helaane xog darayaay darbana tiifiga qaran iyo sonla iyo dawan siday door iyo habeen mar walba warar dooraha naftooda ku dagsatiyo xog darayaay uga helaane xog darayaay uga helaane madaalaha suxufiga damiirka wanaagsan warbaahinta daacada rabbow daraje dhammaan dadaalkoodana adkee rabbow daraje dhammaan dadaalkoodana adkee madaalaha suxufiga damiirka wanaagsan warbaahinta daacada rabbow daraje dhammaan dadaalkoodana adkee 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 kaasi waxa uu ahaa Cumar Maxamed Faarax agaasimaha waaxda wakaalada wararka Somaliland ee Soolna oo waraysigaasi aan la yeeshay dhageystayaal waxaynu soo gaarnay guntii iyo gabagabadii barnaamijkeena xogogaal iyo heestaanu idinka soo xulno qolka kaydka cajaladaha ee Radio Hargeysa waxaanu idinku dhaafaynaa heesta jacayl dhidibka aastay iyo codkii baxsanaa ee fanaankii Allah u naxariistay Maxamed Saleebaan Tubeec tan iyo kulantii dambe dhageystayaal inta aynu barnaamijkaasi mid la mid ah aynu dib ugu kulmayno waa farsamadii Saad Axmed Caydiid iyo Axmed Cabdi Caydiid iyo tabintii anigu waa Sakariya Axmed Maxamed oo idinku dhaafayna nabadgelyo
adduunyada nin dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo adduunyada nin dhoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo nin dhergiyo nin dhowr qaday andheefayn nin dhergiyo nin dhowr qaday andheefayn eddigiyo laboodba hawli kama dhammaatay qof waliba wixii dhibay dhafuurkay ku taala eddigiyo laboodba hawli kama dhammaatay qof waliba wixii dhibay dhafuurkay ku taala ana dhaawacaygi jacayldhidibkaastaan la dhedheeliyay ana dhaawacaygi jacayldhidibkaastaan la dhedheeliyay amba kuguma dhaafin hadday taadu dheelidoy amba kuguma dhaafin hadday taadu dheelidoy maxaa dhacay dhankaagay burjiiftaa dhaliishuye maxaa dhacay dhankaagay burjiiftaa dhaliishuye madhiirado nimaan garab wax lagula dhisaynay nafta dhool hilaaciyo dhibiicbaa umuuqude madhiirado nimaan garab wax lagula dhisaynay nafta dhool hilaaciyo dhibiicbaa umuuqude ana dhaawacaygi jacayldhidibkaastaan la dhedheeliyay ana dhaawacaygi jacayldhidibkaastaan la dhedheeliyay jacaylkeedu dhuuxiyo lafaa wuu dhaadhacay jacaylkeedu dhuuxiyo lafaa wuu dhaadhacay dhulkoo duug dhiriyo ubaax dhammaan ekeeye dhulkoo duug dhiriyo ubaax dhammaan ekeen dhowristeeda oo qudha ayaan dhawr ku qadaya weli dhabaan mid kulamida kama dhalan adduunkee
dhowristeeda oo qudha ayaan dhawr ku qadaaya weli dhabaan mid kulamida kama dhalan adduunkee ana dhaawacigii jacaylidibkaastaan la dhedheeliyaay ana dhaawacigii jacaylidibkaastaan la dhedheeliyaay